Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Waa Sunday, Axad, 18th of April, 18 April. Waxaan barnaamijkeena aqoon wadaag maanta waxaan kusii wadayaa waxaan hubi amba xirfad amba aan akhriyo aan daba socdo Bitcoin iyo cryptocurrency iyo blockchains technology-ga cusub. Inta uu afurku ka hadhay xoogaa dhowr minute baa ka hadhay ayaan ka faa'iidaysanaya balina maanta aragtidayda waxay gaaladu idhahdo vaporware waxay ka dhigan tahay wixii anigu aragti ila ana ku salaysnayn cilmi ku salaysnayn aqoon saa usii badan laakiin waxaan meelaha ka akhristo waxaan ka hadlaynaa saaka markaan soo kacay iyo waxaan arkay cryptocurrency marketkii xoog u dhacay oo crash ku dhaco kale iska mini crash marka waxay meelaha 12% oo 14% boqolkiiba 14 inuu Bitcoin qiimihiisi hoos u dhacay. Taasaan doonayaa bal inaan isdul taago maanta wixii la leeyahay wixii sababta keenay waayay saaka sidaasi maanta axada sidaa hoos ugu dhacday. kulli market marka la yidhaahdo meel suuq wax lagu iibsanayo wax lagu kala iibsanayo suuquna kolna sare u kaca kolna hoos u dhaca marka waa caado inay kolna sare u kacdo kolna hoos u dhacdo. ujeedaduna waxa weeye marka sare u kacdo dadku inay faa'iidaan marka hoos u dhacdaana dadkii qiimaha ku haystay inay khasaaraan. waxa weeyaan laba shay baa la iskala wadaarsanaya dadku dollar amba lacag euro pound dadka kalena waxay qaybta kalena waxa lagu hayaa cryptocurrency bitcoins iyo wixii la halmaama ethereum marka waa la kala iibsanayaa marka markuu cryptogu sare u kaco dadkii gacanta ku haya dollarka iyo poundka yaa qasakh ku jira lack of opportunity ana ka faa'iideysan oo kuwan baa faa'iiday marka sida maanta oo kale cryptocurrency xoog u dhaco waxa weeyaan qiimihiisii baa yaraaday dadkii lacagta ku hayay gacanta dollar iyo pound iyo euro iyo yen iyo RMB bahalkan Chinese money-ga lacagta Chinese dadkaasaa markaa faa'iiday markaa kolba qola faa'iidaysa maanta markaa maxaa dhacay inaan bal isdul taagno. Okay, sidee u dhacday marka haddaan eegno bitcoins oo adiga arkaya maanta wada casaan meel kasta waa casaan most of the cryptocurrency hoos bay wada dhaceen marka laga reebo marka kuwa ugu badan boqolkiiba 20 bay dhaceen 18 17 iyo dhaceen laakiin barba iyagu aad iska kacsan nano dogecoin oo ka hadli doono oo ayaamahan aad dadku faa'iideen 7 cisho ugu dambeysay nearly 400% waxa weeyaan 4 jeer bay sare u kacday markii qofkii kun haystay 4000 iyo ka faa'iiday 4000 iyo gaari 3000 buu ka faa'iiday in ka bida waliba ka sii badna marka hore imka hoos soo dhacday laakiin dadka caadiga ahaa dadkii bitcoin ka haystay bitcoin-ka waa ka ugu stable oo dadku badankoodu haystaan 8% buu hadda jooga uu hoos u dhacay saaka haddaa la bilaabo oo xoog wuxuu ahaa isagoo 60,000 lagu iibsanayo ayuu saaka yimid nearly 52 and 8,000 oo dollar iyo hoos u dhacay iyo wax ka badan nearly 10,000
iyuu 10,000 iyuu hoos u dhacay. Bal intuu dhibta ay leeg tahay, sanadkii hore wuxuuba joogayba 6,000 7,000 8,000. qiimihii uu sanadkii hore u joogay in leeg iyuu within couple of hours oo saacado gudaheed hoos ku dhacay. maxaasan u sababay? waxaa la yidhi couple of reasons, dhowr reason aawadeed iyuu yaa ugu badan. ta ugu horeyso waxay yidhaahdeen shiinaha ayuu ka yimid. marka bitcoins waa la maangareeya, waa la mining af Soomaali waxaa lagu yidhaahdaa marka dahab la qodayo. marka mashiino badan yaa lambar raadiya, sidaasaa bitcoinka lagu dhaliyaa. marka sideedii miridhbaba waxaa dhowr bitcoin baa lasoo saara oo 4tii sanaba hoos u dhaco. casharadii hore aan ku macniyey. marka meesha miningka lagu sameynayo oo ugu badan tahay shiinaha ayuu korontadii ka baktiday, korontadii yaa ka dantay. weliba meesha la yidhaahdo gobolka la yidhaahdo gobolkan waxaa la yidhaha Huanjian. gobolkaasi iyay ku yaalaan warshadaha amba miningka factory amba mining rigs waxa la yidhaahdo oo computerada amba algorithmska lagu raadiyo bitcoinka lagu sameeyo ay aada ugu badan yihiin adduunka. ujeedada loo sameeyo bitcoinna waxaa la decentralizations inayna meel quraata gacanta ugu jirin. tanna waxay kutusaysaa inayba hadafkii amba reasonkii bitcoin loo sameeyey dadkii sameynayey 10 sano horteed inaaba lagu jirin wadadeedii. oy most of cryptocurrency of a bitcoins miningu uu shiinuhu gacanta ku hayo. waxay ka dhiganta hadduu shiinuhu uu halkan ay u badan tahay meesha bitcoin lagu sameeyo, waxaa markaa ka dhigan tahay is not as decentralized as we are assuming. oo dadku siday moodayaan inay bitcoinku una adduunka sidaa ugu baahsanayn oona meel quraata gacanteeda ugu jirin, ma aha. way ugu jirtaa oo waxa weeye shiinaha iyo miningka badankoodu lagu hayaa. marka waxaa la yidhi saaka waxaa dhacay waxay lahaayeen China blackout. marka waxay yidhaahdeen waa kan waxaa ka dhacay gobolkaasi iyo korontadii ka go'day. marka hash ratekii awooddii bitcoins badankeedii markay korontada xagga ka go'day iyo hoos u dhacday. taana waxay dhalisay inay marketka amba dadkii bitcoinka gacanta ku hayay inay shakiyaan, ay badanka iibiyaan. waa one of the reasons. sababaha kale iyaduna lamidka ah oo halkan bad ka akhrisan karaysid ku jirtaba Mareykanka US Treasury-ga meesha lacagta lagu hayo amba federaalka Treasury-ga yaa dacweeyey oo dembi ku qaba dembi kusoo rogi doona dhowr company waaweyn oo la yidhi money laundering. lacagta ila bitcoin qofba gacanta kuma haye, waxaa laga faa'iidaystay inaa lacagta lagu maydho, money laundering lagu sameeyo. sidaa aawadeed dhowr exchange ayaa dhici karta amba dhowr company oona la shaacin magacda la sheegin
inuu Maraykanku uu dacwad ku wado. Marka one of the reason Shiinaha oo meelihii Bitcoin-ka hash rate-ka badankeeda mining lagu sameynayay oo korontada ka go'day oo dhaawac u geystay awoodii Bitcoin. Talabaadna Maraykanka oo laga soo warinayo inuu treasury-gu dhowr company oo exchange amba suuqa lagu weydaarsado between cryptocurrencies iyo dollar iyo fiat money waxa la yiraahdo dollar, euro, pound, yen isku weydaarsado kuwa suuqa shirkadaha isku weydaarisa exchange ka samaysan in la ashkateenayo. Maraykanku kulli lacagtiisa dollarka ayuu ilaalsanaya. Marka taasina weekendigan baydan dhacday. Okay, intaasiba ya sabab u ahaa ayaa laleeyahay mogtay. Waa laba sababood waxaan sheegay, miningkii iyo Maraykanka isaguna treasury-gii oo dacwadooda. Ta saddexaad iyaduna la sheegay waxa weeyaan lacag ku dhawaad 7 bilyan adu 8 bilyan. Marka bilyan la yiraahdo billion dollar kalmaduhu imika waa nala yar easy bay noqdeen, laakiin billion dollar is a lot of money. Waa lacag badan, nearly 8 billion. Iyaa waxa la sameeyay dad iyo khamaar sameeyay, waxa la khamaar amba kind of I don't know, we call it gambling. I call it gambling, laakiin dadku waxay dhahaan trading. Waxay sameynayeen mar hadday suuqii bilahan oo dhan Bitcoin-ku imika saddex cisho ugu dambeysay haddaan eegno saruu socday cryptocurrency oo kuwa kaleba jiraba 7 cisho ugu dambeysay haddaba eegno macal Dogecoin oo isagu ruwaayada black saddex cisho ugu dambeysay 0.06 dollar to nearly $4 yuu sare u kacay. saddex cisho 500% yuu sare u kacay. Marka dad trading ka sameeya ayaa sameynaya waxa la leverage trading. Waxaa la oranayaa waa la amaahanaya ama waxa la tagaya Binance amba companyada waaweyn. Waxaa la oranayaa waxaan doonaa leverage inaan sameeyo inaan deposit aan dhigo lacag bacdeenina aan wixii gacanta ku hayay halkii Bitcoin hadduu sare u kaco 10% inaan sameeyo leverage of 10 oo inaan 10% ka helin times 10 100% aan ka helo. Hadduu 10% ba kacoba 100% inaan helo oo faa'iida. Marka haddaan dhigto 60,000 120,000 yaan helayaa hadduu 10% kaco. yaan helayaa. Cagsigana waxa weyn hadduu hoos u dhaco 10% hadduu hoos u dhacana inta in leg yaan waaya, which means 60,000 kaaga 60,000 kun iyaad isla 10% gudaha ku weeysa. Sida aniga oo kalaanba qof caadi ah haysta anu de 60,000 ma haystay. Haddaan imika Bitcoin aan iibsaday $5 no $10 ka soo qaad baba aan ku iibsaday oo haysto $10 10% hadduu hoos u dhaco waxaan lose gariyay 10% quraata. Marka waxaan haystaa $9 yaan weli iigu jirta. Laakiin leverage kii sameeyay within 10% kaasi iyo liquidation ku dhacaysa oo $10 kiisa uu waayay. Marka dad caynkaas oo ku jiray wax la leverage oo trading sameynayay iyay ka faa'iideysteen ilaa suuqii uu xiran yahay. waa weekend waxaan ku jirno oo shirkadihii waaweyn iibsanaya Bitcoin imika ma iibsan karaan berri mooyane. Marka dadkii iyagu ku jiray tradingka waxay sameeyeen dadkii awoodda lahaa what we call whales amba nibiri Somali waxay sameeyeen
inay crash ku sameeyaan bitcoin, kana faa'iideysanaya iyagoo ka faa'iideysanaya dhowrka news events dhacaysa ee shiinaha oo warshadahoogii ay galeen koronto la-aan, maraykanka oo ashkato kusoo rogay dhowr company iyay ka faa'iideysteen inay crash ku sameeyaan qiimaha bitcoin ilaa iyo intay karaan. marka dadkii halkan leverage ku haystay leveraging sameynayay intaasoo dhan waxa la dhahdo liquidation lagu sameeyo, which means 10 bilyan markii liquidation lagu sameeyo 10 bilyan oo dollar dad gacanta ku hayay adduunka dadkii ku haystay inaad dadkaasoo dhan laga soo gurto oo qaataan dadkii sameynayay crashka sameeyey counter trading sameynayay iyagu sameynayay dadka inta iyagu ka rajaynayeen inuu bitcoin ku kaco, kuwii iyagu khamaarka sameeyey amba leverage sameeyey asa put waxa la sell, dadkan intay long ay sameeyeen kuwana short waxa la sameeyeen. marka dadka xarfaanta waxaan khamaarka aad ugu jira kelmadda weli ma isticmaalaya gambling, that's my opinion. marka sheegad wax ku bilaabay waa shay waxa weyn waa khamaar dadkii gameka ciyaarayay iyo ka faa'iideystay oo 10 bilyan iyo dadkii ka macaashay. That's my opinion wixii maanta dhacay. saaka markaan soo kacay arkay inuu bitcoinku hoos u dhacay, hadda saacaddii ugu dambeysay ka kacayaaba. marka waxaan waa game, it's just a game. gamekana waxaa ciyaaraya dadkii lacagta haystay, annaku shicib ahaan dadka ummadan Soomaali ahaan barnaamijka Soomaalida saabsan yahay shicib ahaan gamekan inaan ciyaarno ma aha. gameka long term waa inaan ku ciyaarno aan nidhaahno iyagu ha isku eryadaan short terms leverage kan isku eryadaan, but hadday naga dhaadhacsan tahay inay long term look within 1 year long term hadday naga dhaadhacsan tahay inuu bitcoin kacayso, let's buy it and keep buying. and insha Allah haddays dee aan aragtideynu ay sax tahay, let's sell it in 2 years time, 3 years time, 5 years time, nimba si ugu adkaysi badan, and then maybe we're gonna make money. That's how we're gonna make money. But do not, I don't know diinta waxay ka qabto about leveraging. horta dee anigu waan oran lahaaba if you are a professional leverage waxaan oran lahaa yes qofka inuu ku shaqaysto, adduunka shaqaa loo joogaa, dadku ay shaqaysanayaan ha shaqaystaan. But if you are not a professional, do not play the long and the short games in cryptocurrencies. ciyaarin gamekan. And that's my opinion. Okay, so laakiin look, Dogecoin Elon Musk baa gacanta ku haya. Elon Musk baa waxaan ninkan Tesla oo nin dee aragti dheer la oo adduunkana saameyn ku leh yaa isku tilmaamay inuu CEO xukuumada qoladan, CEO of Bitcoin sorry, CEO of Dogecoin kusoo qoraa, which means waxa la yidhi only about 10 wallets, 10 qof amba qof quraata, laakiin 10 wallet waxa la yidhaahdo boorso oo lacagta lagu hayo Dogecoin iyaa xukunta oo gacanta ku haysa 40% of Dogecoin, boqolkiiba 40, which means Dogecoin is really centralized. Only dad baa gacanta ku haya kooban. dadka haddaynay if they're not selling like they doing now, they're not selling, it will not crash, and that is what happening. Dogecoin dad badan baa ka faa'iideystay. I'm not into Dogecoins, but whoever made money, well done. And I don't believe in Dogecoin. Dogecoin is just a joke coin, but the whole cryptocurrency is a new stuff, and it means maybe the joke will win. Maybe Dogecoin will win in the long term. We don't know. Especially hadduu Elon Musk ku ruwaayadda u jelayo ay socoto, yeah, people will make money. XRP baa sanadkan ayaamaha kacsanaa. The only reason XRP is really popular cryptocurrencies, really popular, and that was crashing for the whole, I think
look 2017 kiis sare intuu kacay like parabolic. Woo! EU for the whole 2017 to up to now was crashing. Dad badan ba gacanta ku haya. There is a lot of people who are into XRP, and Mareykankuna maxkamad buu ku hayay. There is a court going on in USA, and apparently they are winning. XRP is winning. George Key is kind of leaning towards the XRP people. SEC da qolada waxay saysteen suuqa haya Mareykanka dowladda, but it looks like they might win, and if they win, hence it will goes up parabolic. XRP used to be the second, mar waxaan jiray second and second cryptocurrency after Bitcoin. Ethereum third behind it. But yeah, it might goes up to what I'm saying 60 billion market cap. It might go another 10 times. Yeah. And 5 times. Except you kick it. So that's how it going. That's how it goes. Okay, and lastly, quickly, let's have a look at the Somali degenerate. I call it Somali degenerate. Lakin they are into cryptocurrency. So and at least I know these people are really interesting. I call it just a joke as a degenerate. But lakin, and they might be into the money. And so you can hadliyin, but the only take I can on here is like a lot of people are just bragging. That's not the point. Mention fun. حافظين يا صاحبة أو fun, but like into the internet, people that don't know you, why would you tell them how much you bought and how much you made? That's not the point. The point is to exchange idea and to exchange in general terms. Yes, when IPCD, that crypto, and it's going up. When IPCD and bought it for that reasons, and let's debate about the reasons. And I really appreciate some people that are into more knowledgeable, like this gentleman, a lot. But he's more knowledgeable, and even more knowledgeable than me. So I appreciate. And iyagu dadka Soomaalida doonaya inay la socdaan, let's go into the business section of Somali Spot, and let's have a exchange of ideas, what's going on. And way ka hadlayaan reasonyadii uu Bitcoin maanta u dhacday, and they are telling us what they're doing about it. And some of the people are really contributing very useful informations, and let's carry on, but less bragging, and we don't care about how much you made it money wise, and the opposite as well. We don't care about how much you're losing. That is the games. People are winning, other people are losing, but the main thing is let's elevate the awareness of Somalis regarding the cryptocurrencies, and that's the main motto. And I will come back another time more into it, what's going on, especially the Somali Spot people. And yeah, وأفركي مع السلامة. We'll talk to some other times.